markii ay ka soo baxeen jexjeexyadii iyo godadkii ay ku dhuumaalaysanayeen oo ay soo fuuleen qararka godadkaasi ayaa waxa lagu foorariyay hubkii cuslaa waxaana sidii roobkii oo kale lagu duqeeyay rasaasta waxaan la arkayay ciidamadii soo duulaan tagay oo qararkii ay ku dhuumaalaysanayeen ka daadanaya waxaana meeshaasi lagu gubay hal gaari halka ay hal kalena ay kaga carareen goobtaasi kadib markii ay qabsadeen xabadihii la isweydaarsanayay gaarigaasi huwantiyaal daaroodiya qaskana ka wada laasacanood maanta barqadii mar kale waxa ay dagaal ku qaadeen laba fariisimo ciidanka Soomaaliland ay ku lahaayeen koonaha magaalada laasacanood dagaalkii saaka lagu soo qaaday ciidamada Soomaaliland ayaa waxa soo qaaday ciidamo saacadihii ugu dambeeyay tagaya laasacanood kuwaasoo la soo marhabaabiyay isla markaana la soo siiyay xog qaldan kuwaasoo lagu yiri ciidamada Soomaaliland waxa ay isaga baxeen aaga maraaga kadib markii ay halkaasi ay ku soo fataheen daadad far badan isla markaana ciidamada Soomaaliland tiradoodu ay aad u yar tahay si fududna loo ugaarsan karo oo loo soo qaban karo midaas ay rumoodeen kadibna waxa ay dagaal ku soo qaadeen fariisamihii ciidanka Soomaaliland ciidamada Soomaaliland oo markii horeba ka warqabay dhaqdhaqaaqa ciidan ee halkaas ka jira ayaa ciidamadii soo duulaan tagay waxay u ugaarsadeen mid ayagoo mid walba meeshiisa ku toogtay waxaana meeshaasi lagu gubay hal gaari halka ay hal kalena ay kaga carareen goobtaasi kadib markii ay qabsadeen xabadihii la isweydaarsanayay gaarigaasi in yar la daawa muuqaalkaani klibka ah oo ku tusinaysa xaaladda guud markaasi goobtaasi ay ku sugnaayeen iyo ciidamada Soomaaliland oo markaasi ugaarsanaya ciidamadii soo duulaan tagay markii ay ka soo baxeen jexjeexyadii iyo godadkii ay ku dhuumaalaysanayeen oo ay soo fuuleen qararka godadkaasi ayaa waxa lagu foorariyay hubkii cuslaa waxaana sidii roobkii oo kale lagu duqeeyay rasaasta waxaan la arkayay ciidamadii soo duulaan tagay oo qararkii ay ku dhuumaalaysanayeen ka daadanaya halkaasna waxa ka soo gaaray jab ay sameeyeen waxayna halkaasi ka laabteen ayagoo ku haya boowe waana soo qalday inuu meesha ciidan joogo maanan moodeen markii ay ku soo laabteen fariisamihii ay markii horeba ay ku duulaan tageen ayagoo wata meedkoodii iyo dhaawacoodii ileen dagaalka waxa ku socda fane ayagana waxa laga doonayay waa xogta dagaalka barqadii maanta ay qaadeen si ay u qariyaan jabka ka soo gaaray dagaalkaasna waxa ay qurba joogtii fangareenaysay dagaalka waxa ay u sawireen sawir qaldan waa kuwan ay la daawada ayagoo libin ka sheeganaya dagaalkii barqadii ka dhacay duleedka laasacanood ayagoo markaasina qurba joogtii u sawiraya sawir qaldan oo dagaalka quseeya ila daawada gooja cadde waxa anaga noo dhaxeeyaa ma jira xitaa buuri nooma dhaxayso gooja cadde waa kaade ninkii yaqaani baa yaqaana yaa buurtii gooja cadde aan teerada u saarnayna warta oo buurta barbarkeedii baan joognaa soo ma garan iduu dagaalku wuu joogsaday iyo xabadii way istaagtay soo ma garan waxaa iska daaya haddaba aad ka sheekaynaysaan raggu sidaa uu yahay la noqda oo weliba gabdhihiina guruubada ka hadlayaa noo kaale cuntada noo kariya gabdhihii labada bilood cuntada noo karin jiray waa yaaceen wax dhintay iyo wax dhaawaca iyo wax waxay noqdeen dhiigay bay noqdeen soo ma garan kuwiina dibadda jira soo dega oo kaale cuntada noo kariya waxaana riwaayadaasi loo dhigayaa dadka qurbaha ku nool waxaana loo sawirayaa xaalad aan jirin si ayaga lacagahooda looga qaato isla markaana halkaasna laga sameeyo dakhli fara badan qof muslima oo sooman qofkii duulaan ku soo qaada oo doonaya inuu dhiiggiisa daadiyo qofkaasi islaamku xaguu kaga jira midaasna waxay ku tusinaysaa kuwa ka dagaalamaya laasacanood inaysan soomaneen rabadaan iyo rabadaan la'aanna aysan kala aqoonba si la mid ah dagaalkii barqadii ka dhacay laasacanood waxaa mar kale la soo jibiyay
isla markaana geesta kale laga soo jebiyey ciidamadii kale ee duulaan ku qaaday fariisimaha ciidamada Somaliland. markaanse ciidamadii ku sugnaa fariisimihii kale la weeraray markii ay soo jebiyeen ciidamadii soo duulaan tagay waxa ay gudaha u soo galeen gudaha magaalada halkaas oo ay ku sugnaayeen qadar saacado ah kadibna waxay ku laabteen fariisimahoodii hore. labadii bilood ugu dambeysay Laascaanood waxa ay ku jirtay xaalad dagaal waxaana magaaladaasi ku soo qulqulayay ciidamo meelo kala duwan ka imaanaya iyagoo markaasna ugu soo qaybgalaya dagaalka Laascaanood siyaabo kala duwan. ciidamadaasi labada bilood ugu dambeysay ku soo qulqulayay Laascaanood ma jirto hal fariisin oo ay kala wareegeen ciidamada Somaliland. waxaan ognahay ciidamada Somaliland markay ay ka baxayeen gudaha magaalada in ay uga baxeen amar uga yimid xukuumadda Somaliland oo markaasi ku dhawaaqday xabad joojin. ciidamada Somaliland waxa ay ku sugan yihiin fariisimahooda marka duulaan lagu soo qaadana waxa ay ka bixiyaan duulaankaasi jawaab cad ayagoo markaasna jab xoog la gaarsiiya ciidamadii soo weeraray. balse waxa isweydiin badan kuwii ku soo qulqulayay Laascaanood maxay soo kordhiyeen maxayse qabteen marba haddii ay ciidamada Somaliland ku sugan yihiin banaanka hore ee Laascaanood marna gudaha ay u soo galaanba. ma la soo karaa ciidamadii ku soo qulqulayay Laascaanood oo ka kala imaanaya deegaanada kala duwan oo ay degaan beelahaasi daarood waxay u imaanayeen oo kaliya in ay dhaqaale ay ka sameeyaan dagaalada ka socda Laascaanood ayagoo markaasna ku soo bandhigaya amaba dadka ku baraya qabaa'iladooda oo aan si fiican loo aqoonba.